بنا وفي كفنا شعلة من علوم توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا برغم الغيوم وتشد الطيور بذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. waxaan jeclahay inaan ku dhamaystira maanta tan maadaama aan asaabiicdii hore wixii noogu dambeeyey aan ka hadalnay ay ahayd waxa la yidhaahdo xeerka iyo sida annaga xeerkaan u isticmaalno oo ah islaamka in looga hor yimaado nusuustiisii dhan banaanka loo tuuro xeerkiina uu noogala wen yahay dhibka uu leeyahay iyo wixii ka ratibmay iyo sida keli oo lagu maxaan idhahdaa arrintaas lagu daaweyn karo horey baan uga soo hadalnay. marka waxaan jecelnahay inaan haddana raacino waxyaalaha maadaama annaga adiladii islaamka ahayd oo afarta ahayd aan diidnay waxyaalaha adila aan u samaysanay waxaa ka mid ah xeerkaan idhi waxaan ku daraynaa maanta qayb yar ilaa nisfi saacaan wadaynaa kadibna asilada aan idin furayna waxa la yidhahda caadada la yidhahdo caadada xeerka way ka duwan tahay. caado waxaa la yidhahdaa maa jaraa calayhi curfu nnaas, dadka curfigooda waxii uu ku socday ama uu caado ay ka yeeshteen baa la yidhahda. xeerka waxa weeyaan waa wax qoran ama wax la wada yaqaan oo la xifdiyo oo markay wax dhacaan la isugu yimaado. caadadana waxa weeyaan waa wax yar iyo weyn dumar iyo rag ay iska sameeyaan ee ay iska dhaxleen dadkoodii horo. haddii aad tiraa war waxa kan sharci islaamka waa ka hor imaansan yihin waa diidan yahay, haddii aad tiraa waxay ku leeyihin waa sax weeyaan, laakiin waa caadadeeni caado la khilaafana cara an lay leedahay baa lagu leeyahay. taas macnaheedu waxa weeyaan nusuusta islaamka oo dhan in meel laga tuuro oo caadadii la qaato sidaas bay noqonaysaa. marka amhilo yar baan kaaga sheegaa maadaama caadada ay badan tahay wax la koobi kara aysan ahayn yan waxaan kaaga aan misaalahaan kaga dhigay qeybiyaal marka aad ogaatid sidan caadada annaga aan u horumarino nusuustana aan dib u dhigno taasaad ku ogaan kartaa. ayib marka caadada haddii wanaagsan tahay weligeed caado wanaagsan waxay ka timaadaa ummad dhaqan fiican leh ee islaamka ku dhaqanto waxaa ka dhalanaya markaas islaamkaas lagu dhaqanayo oo caadado wixii dhamo islaamka uu la yimid baa caado noqonaya. marka hadhow dadkii yaryaraa iyo jiilkii gadaalka imaanaya o dhan waxay noqonayaan caadadaas islaamka oo waaye dadkoodii oo waaye aragga ama ka horreeyey ay ku dhaqmi jireen caado u noqonayso. marka caadadii iyo shareecadii bay iswaafaqayaan wax aada u qiimo badan weeyaan. waxaan misaal ahaan kaa siinaya 20 sano ka hor waxa weeyaan gabadhi inay xijaab qaadato ama dumarkii ma jiri jirin. cid kastoo lagu dhalana idan waxay ku dayan jirtay hooyayaalkood, laakiin maanta haddeertaan lama dhahayo. gabadhii yarayd markay dhalato waxa weeyaan ceeb bay la tahay dugsi inay aado iyadoon xijaabna gaarin yaa waxay doonaysaa inay xijaabka qaato, leanna waxay arkaysaa hooyadeed baa xijaaban, walaasheed baa xijaaban, jidkii dadkii socday maxaan ku ihahdaa shaaricii dadkii o dhan baa xijaaban. marka waxaad arkaysaa ummadii yaraanteedii in gabadhii ay ku qaadanaysa xijaabkii. taas waxa weeyaan waa caado fiican oo dhaqan islaam ka timiday ummadana dhaqan u noqotay. waxa weeyaan waa aad bay u qiimo badan tahay. haddaan nusuusta islaamka ku dhaqan lahayn sidaasay wada noqon lahayn. marka maadaama anigaan ugu talagalnay barnaamijkan hadihi sabiili inaan ku daaweyno waxyaalo badan oo dadka inay toosan yihin ay u arkaan ee sharciga islaamka ay khilaafsan yihiin oo jidkii lagu soo duway inaan kaaga hadlo aan kuu ballan qaaday yaa waxaan xooga saaraya caadaadka islaamka ka hor imaanayo sayi ah oo dhib keensanay inaan kaaga hadlo. caadada ugu horreysa waxa weeyaan laba qayb u kala baxda. caado waa mid macsiya oo sharci islaamka ah khilaafsan qofkiina uu ku dambaabay, laakiin macsiya oo min almacaasi ah. midna waxa weeyaan mid caqiidada dhaawac u geersanaysa weeyaan. marka midda way kala daran yihiin oo wax allaale wixii caqiidada islaamka ah waafaqsan waa sax, wixii diidan oo ka hor yimaadane shirki bay qayb ku yeeshanayaan ayagana. sidaa daraaddeed waxaa ka mid ah fadli ilaahay subxaanahu watacaala uu ku siiyey inaad u nisbaysid makhluuq ilaahay uu abuurtay inaad tidhaahdo fadliga isagaa isiiyey inaad tidhahdo waxay ka mid tahay. waanan sheegi doonaa caadad badan oo sidaas ayaa jire waxaan ilaahay adiga gooni kuu siiyey ama maal ama caafimaad ama caruur ama wanaag oo dhana waxaad leedahay fulaan ama nin heblow ama wakti heblow baa arrintaas sabab iigu ayaad leedahay. taas waxay tahay islaamkii oo meel looga dhaca. masalan nabiga calayhi salaatu wasalaam maalmaha maalin ka mid asigoo markii ghaswada xudaybiya la yidhaha uu joogay yaa roob uu da-ay. markaa roobkii dadkii markii subax arkeen baa nebigu wuxuu idhi
markuu salaadii intuu dukaday iyagu soo hor fadhiistay yaa wuxuu yidhi dadkii ma taqaaniin buu yidhi dad yahabow maadaa qaala rabbukum habeenka kan ilaahay wuxuu yidhi ma taqaaniin qaaluu waxay yidhahdeen allahu warasuuluhu aclam qaala asbaxa min cibaadii mu'minun wa kaafirun saakii waxaa lagu waag bariistay mid gaal ah iyo mid muslim ah roobkaan da-ay awgeed oo nicmada timid fa amaa man qaala mutirnaa bifadli illahi waraxmatihi fadalika mu'minun bi wa kaafirun binujuum ninkii yidhaahdo annaga waa maanta roob baan helnay ilaahay baa gargaarna sii bifadlillahi waraxmatihi aan ugula siiyey fadalika mu'minun bi aniga ninkaas waa i rumaysan yahay buu ilaahay leeyahy xadiid qudsi waa wa amaa man qaala mutirnaa binawi kada wa kada kaafirun bi wa mu'minun bilkawaakib buu nabiga alayh salatu salaam ilaahay ka sheegay xadiidkaas qudsiga ninkii yidhaahdo xidig heblaay baa xalay soo baxay kaas daraaddeed baa roobkii watay asigaa xidigaasaa na waraabiy oo roobna sii markii aad tiraahdo ilaahayna waad ku kufrisay waxaadna rumaysay xidigaasaad rumaysood waxaa weeyaan nafcigii iyo wanaagiiad isaga u tiirisay roob ilaahay uu keenay awaamir malaa'ig la siiyey addoomankaygaas iyo waraabi la yiriye oo roobkaa gey la yiri yaa waxaad leedahay xidigoo iska jaamid oo wuxuu yahay aanan jirin oo makhluuqaadka ilaahay kamid ahaad leedahay xidigaasaa na waraabi xali asaa soo baxay asiga hadduusan ahaan lahayn kuma uusan juri lahayn carabtii asaasay ahaan jirtay nebigi dadka aad bay oo ay markaa ay arrintaas ugu baraarugeen liannahu waxyaala dadka ay haysteen inay roobka haddii waxaa la helay in la helay oo kale marka annaga marka aan fiirino caadaadkeedana u laabano oo kale way badan yihiin waxyaalaha la noocaas laakiin 2 nooc ama 3 nooc baan kaaga taabanay bal u fiirso waxaa la yidhahdaa caadada la yidhaha istunka oo kale ka soo qaado soomaalida waxay ka aaminsan tahay haddii aanan istunkaas ayna dhicin ama dadka caadadaas yeelinaanu soomaalida waxaa weeyaan waa qabaa'il qabiilo kastana caado bay leedahay mid la leeyahay midaabay ka fiican tahay ma jira mid kastaba caado bay leedahay dadka waxay leeyihiin istunkaas ninkaanan dadkii tumin haddaanan istunkaas dhicin abaar baa dhacayo haddii uu roob dhacana nafci laga heli maayo sidaas bay dad muslimnimo sheeganaya ay samaynayaan bal qaab darrada ay shareecada islaamka ku leedahay islaamka ilaahay nabigiisa wuxuu yihi sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaaluhu kufr in nin muslim in la caayo waxa weeyaan waa faasiqnimo in lala dagaalana waaba gaalnimo weeyaan marka ninkii muslimka ahay in la yidhahdo maanta waa dagaalamayna aan isu soo baxno ee midiye iyo sakiiman xataa ulasha lasoo dhexgelinayo dhagaxyaalo iyo maxaan ku yidhahda sida qolada loo jibiyo markaa jeesh iyo jeesh laiska hor yimaado oo midka isha laga bixiyey midka la dakray midka dhiiggiisa daadanayo aada yaabaysa ummaddii sidaa dhibkaas banaysatay waa macsi aada u weynin badan weeyaan waa macsi waxaa siyaa badan iyadoo macsi ah oo wax fool xun ay tahay dad muslimiin in laga dhex helana aysan ahayn in haddaan aan u aragno macsidaas annaga aan samaynayno waxay jid u tahay raxmada ilaahay baan ku helaynaa wuxuu ilaahay reebay maa naha allahu canhu laa yakunu طariiqan liqurbati illahi tabaaraka watacala ma dhici karta laa yakunu طariiqan fii qurbi illahi tabaaraka watacala wax ilaahay uu reebay maa dhici karta in loogu dhawaado wax aada u foolxun weeyaan arrintaas ayada ah marka dembigaas waxaa qayb ka leh waxa weeyaan ummaddaas markii islaamka soo galeen waxyaalihii islaamka diidaya oo dhan baa loo dhaafay marka islaamka dhinacay ka wataan wixii islaamka burinayna dhinacay ka wataan taasna mas-uuliyadda waxa weeyaan ummadda meeshaa joogto oo qabaa'ilkaas madaxda u ah oo cuqaal leh oo culamo leh inay dadkaa kala hadlaan waxaas diinta islaamka ay khilaafsan tahay oo ilaahay wuxuu reebay aan loogu dhowaan karin roobna ayna keeni karin caqiidada ay dhaawac u geysanaysa taas waa in la ogaado ayib waxaa ka sii daran waxa weeyaan sidaas oo kale qola waxay leeyihiin wax badgalliidahay qabaan badkaas haddaanan la gelin waxa weeyaan sidaas oo kale ama dabaysha isma taagayso ama roobkii ma imaanayo ama barakadii bay ka tegaysaa ayadana waa nafsi shay waxa weeyaan roobkan ilaahay uu keeno nicmadiisa in adiga aada u tirisid xayawaan biyo la geliyo oo bakti lagu dilo in aad u tiirisid roob bay ku imaanaysaa nin muslim oo laa ilaaha ila allahu dhahay ma haboono dadka saa samaynana waa jad jaahiliin waxay xaq ku leeyihiin dadka walaalahooda ah oo ayaga la dhashay ama arrintaa wax ka og inay arrintaas ay ka hadlaan la yidhaahdo annagoo muslimiin ina ficilkaas samayna ma banaano
markaan rabna inaan khayr raadsano maxaajid noo ah bal nusuusteenna hadda aan ku laaban waxaan u leeyahay sidaas waxa weeyaan annaga waxaan aaminsanahay waxaas bay dad ay aaminsan yihiin roob inuu ku imaanayo ilaahayna wuxuu leeyahay waan low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maaan gadaqa bal u fiirso ilaahay wuxuu leeyahay haddii dadkii toosnaan lahaayeen cala ariiqati jidkii dhabta hadday qaadan lahayn la asqaynaahum maan gadaqan biyo badan baan ilaahay aan ku waraabi lahayn buu leeyahay ayib reer ahlu kitaab baa waxaa la yidhi walow ana ahla alqura aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard haddii ay toosnaan lahaayeen baraka korna waan ugu keeni lahayn oo roob ah hoosna waxaan ugu soo bixi lahayn daaq iyo barwaaqo iyo waxay cunaan baan ugu soo bixi lahayn sidaa daraaddeed waxa weeyaan waxa keli ah oo khayrka lagu helo oo reebka lagu helo caafimaadka lagu helo carruurta lagu helo waxa weeyaan waa ilaahay jidkiisa oo lagu toosnaado marka kitaabki ilaahay inuuna leeyahay war haddaad toosnaataan roob baan idin siinaya inuu ilaahay kitaabkiisana leeyahay annagana aan leenahay markaan isdilnaan roob helayna sidaa muslim laguma noqon karaa waa inaan isweydiinaa qofka muslimka waxaa loo baahan yahay maalin baa waxaa dhici doonta lagu leeyahay iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba war kitaabkaada akriso marka waxaa lagu leeyahay hadirtaan war kitaabkaas ha ku qorin waxaadan hadhowta ka jawaabi karin ha ku qorin baa lagu leeyahay oo waxaadan ka jawaabi karin hadhow waxaa lagu leeyahay miyay ahayn roobka markaad raadsanaysaan jidka lagu raadiyo sow ilaahay kitaabkiisa ladinkuma barin sow nebi maxamed idinma caddaynin marka lagu yihahdo maya ma dhihi karto wixii meeshii bay ku cad yihiin marka tiraa intaas aniga waan ogaay kas baanaan ugu tegay oo waxaan aaday aniga caado iyo awowyaalkayga aan ka dhaxlay baan aniga aaday sidaasaan aniga rumay ilahay agtiisa jawaabkuu noqon maysa marka taa waa inaad hadda diyaarsata sidaa daraaddeed ilaahay wuxuu la hadlanay faqultu istakfiruu rabbakum nabi llaahi nuux qoomkiisa wuxuu ku yidhi waxaan ku idhi istakfiruu rabbakum inahu kaana gafaara yursil asamaa calaykum midraara nabi llaahi nuux waa awalu rusul weeyaan yaa wuxuu ku yidhi ilaahay waxaan qoomkayga ku idhi war ilaahay dembi dhaaf weydiista haddii aad weydiisataanna yursil asamaa calaykum midraara samada buu idinku soo dirayaa oo sidaad rabtaan aada roob aad ugu heshaan baa ilaahay u ballan qaada nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa markuu rabo inuu wax uu tusiyo markii abaar timaado markii ay timaado macnaha roob la-aan ma uusan dhihi jirin caadaad maxay noo ahaan jirtay ma uusan dhihi jirin nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray maalin heblaay baan banaanka u baxaynaa marka maalinkaas ha laysku soo baxo dadkii oo dhanna hala soo bixiyo carruurtii hala soo bixiyo waayeelihii hala soo bixiyo meeshaas baa 2 ragca lagu dukanayaa khudbaa lagu akrinayaa ilaahay baa laga baryayaa hadday dhici weyso roobka in la helo waa lagu celinaa haddana waa lagu celinaa ilaahayna waa ballan qaaday in dacwadaas sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii aan qaadano inuu ilaahay subxaanahu watacaala nagana siinay marka waxaan u jeedaa caadooyinkaas aada u fool xun dad badanaa waxay u qabaan dadka samaynaa keliya inay dembigeeda helayaan markay istu noqoto ama badgel ay noqoto ama wixii lamid ay noqoto nin kasta oo arrintaas ka qayb galo iyo ninkii soo abaabulo iyo ninkii u daawasho tago iyo ninkii faahfaahiyo idaacooyinka buubuuniyo arrintaas yidhahdo saasay dhacday taasay tahay berri ay dhacaysaa istunkii berri bay badbal kulli waa ku wada jira liannahu nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu sheegay ribada ninka cuna lacana allahu aakila riba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidayhi wa qaala hum sawa ribada ninka cuna iyo ninka cunsiyo iyo ninka u qoro iyo ninka markhaati ka noqdo kulligood waa iska wada mid buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam marka adiga ha umoodin baabuur baan afgooy u raaca aniga waa fiirsanaya istunkaasaan fiirsanaya sidaas aniga dembi kuma gelino dadkaasa aniga aan iska fiirsanaya ma jirto waxa weeyaan haddii ay caado xun ay tahay haddaadan reebi karin ka fogow haddaadan reebi karin ra'yigaada ha ku darsanin waxa laga hadlaya taas weeyaan ayib taas waxay tahay wax ilaahay fadli ou ummadda siiyey oo cid kale loo tiiriy markaan istunaa roob noo yimiday markaan badda galnaan roob noo yimiday markaan saas samaynaan roob noo yimiday waxaa fadligii ilaahay uu anaga na siinay oo asiga uu nagu manaystay aan cid kale u tiirin waxaa taas lamid ah oo caado xun ah wax allaale wixii dhib kugu dhaco makruuha ah inaad tiraahdeed waxa iigu sabab ahay ilaahay kayrkiisa haddana i dhibay adduru wannafcu waxa weeyaan ilaahay baa iska leh waatuu nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii qudsi ku sheegay haddii khalaa'iqdoo dhan insi iyo jinni bannaan isugu yimaadaan oo ay doonaan in adiga ay ku dhibaan lan yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu allahu calayk hadday ku anfacaanna sidaas weeyaan marka sidaa daraaddeed
ma banaana haddii canugaa kaa dhintay jiraa kuugu dhacday xooliyaa kaa baaba'ay meeshaasaa laiga soo gaaray fulaan baa saan i yeelay sharcan inaad tiraahdeed ma banaano ilaahay wuxuu leeyahay qoladii gaalada waxaa lagu yaqiinay nebi maxamed ay ku eedayn jireen wain tusibhum xasanatun yaquluu hadihi min cindi illah wain tusibhum sayi'atun yaquluu hadihi min cindik qul kullu min cindi illahi fama lihaulaa'i alqawmi laa yakaaduuna yafqahuuna xadiidan baa ilahay uli haddii ay dhib yar wanaag hadday helaan waxay leeyiin wanaagaan annaga ilahay agtiisa uu nooga yimiday waana astaahilna haddii sayi oo makruuh abaar iyo dhibaato ay ku dhacdane waxay leeyihin haadihi min cindika maxamedow adaan ku sharaysanay waayo haddaan jaahilnimadayna iyo waxayna iska haysanahayn barwaaqaan helinayna diintan iyo khayrkaan aad nafaraysa daraaddeed yaaba dhibkaa noo keenay markaasaa ilahi wuxuu ihi qul kullun min cindi illah wanaagga iyo xumaantaba qadar ilaahay bay ku yimideena ilaahay xaggiisay ka yimideena lagu yidhi markaa famaa lihaulaa'i alqawmi laa yakaaduuna yafqahuuna xadiisa qoladaas maxay wax la garan la'yihiin baa layidhi wax ma fahmayaan liannahu nafciga ninkii keenay unbaa durna keeni kara marka seed u dhihi kartaa markiid wanaag heshana ilaahay baa isii markii dur iyo dhib kugu dhacane adiga igu sabay wax iskeeni kara ma hadday caqli lahaan lahaayeen way iska ilaalinahayeen baa layidhi nabiyullaahi muusa qowmkiisa ayagan sidaasay ahaan jireen sideedaba atawaasaw bihi bal hum qawmun taaquun bilahi uu yidhi waxay dhihi jireen faidaa jaa'athum alxasanatu qaaluu lana haadihi wain tusibhum sayi'atun yatayaruu bimuusa waman macah haddii wanaag ay helaan waxay leeyihiin qaaluu lana haadihi midda annaga iska laho caqligeena iyo karaankeena ku keensan haddii dhibaato iyo makruuh ku dhacdane yatayaruu bimuusa waman macahu muuse iyo dadkii mu'miniinta a noogu sabab diintan in waxaan aad wadaan oon caadadeeni aan wax aad ka bedesheena abaartan no sabay saasay leeyihin ilaahay wuxuu ihi alaa inamaa daa'iruhum cinda allahi walaakina aksarahum laa yaclamuun baaska iyo dhibaatada iyo balaayada iyo xumaanta dhibka ku dhacaya ilaahay baa ku qadaray macsi ay sameeyaan looga abaalmarinayo laakiin badigood wax ma fahmayaan layidhi fahmi la-aantaas daraaddeed yaa waxay ka raadinayaan bushiga meel uusan ka soconin yay u raadinayaan ayib waxaa laga yaabaa inuu qaarkiin yidhaahdo war ninkii haddii uu ilaahay waxaan ahayn ou ka cabsado qofkii miyuusan xaq u lahayn inuu ka cabsado sida baabuurta uu kaga wareeganayo sida maxaan ku idhaahdaa ou libaax hadduu kasoo baxo u kaga cabsanayo miyuusan ilaahay keyrkiisa hadduu rajeena maxay dhibaysa haddaad tidhaha waxaan ku leeyahay cabsida iyo rajada waa laba shay oo in cibaado ah weeyaan haddaad ilaahay ka cabsatid qurba weeyaan haddaad ilaahay rajaysidna waa qurba oo ilaahay loogu dhowaanayo marka shay daacad ah in ilaahay keyrkiisa loo iilo oo macnaha loo jeediyo ma banaano haddii aad cibaado ama shay ilaahay loogu dhowaado niman ilaahay ahayn aada ugu dhowaatid waxay noqonaysaa waa gaalnimo islaamkii baad kaga baxaysa walidaalika ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala wayakshawnahu walaa yakshawna axada ila allah asiga un bay ka cabsanayaan dadka mu'miniinta oo lagu yaqaan caqiidadooda ay sax tahay ilaahay un bay ka cabsanayaan walaa yakshawna axada ila allah sidaas oo kale falaa takshawhum wakshawnii baa ilaahay uu leeyahay waxaa lagu ceebeeyey dadkii yidhaahdeen yakshawna annaasa ka khashyati illaahi aw ashadda khashya dadkii ilaahay uu ku yidhi dad baa waxaa weyaan cabsidii intii ka badatay waxay lamid dhigeen sida ilaahay uga cabsanaya wax lamid in dad kale ka cabsadaan waa lagu ceebay waxaa la yidhi arrintaas arrin sax ma ah sidaas oo kale wayarjuuna wayakaafuuna cadaabahu yarjuuna raxmat allahi waa qayb wayakhaafuuna cadaabahu waana qayb kaloo loo baahan yahay sababta saas loo yeelaa maxay tahay haddii ninkii bani aadamka ahay haddii caawa ay arbaca soo gasha ama talaada waa cabsanaya maalin fulaan baa timid waa cabsanaya shimbir baa agtayda ka buushi waa cabsanaya fulaan baa isoo fiiri waa cabsanaya ninkaa macnihii waxay noqonaysaa nin ummadiisana aan waxba ku taraynin naftiisana aan wax tarayn liannahu ciddii socotana waa ka cabsanaa ciddii wax umalayna waxbuu ka rajaynaya ninkaas maba noqon kara nin mu'min e maba noqon karaba waxa weeyaan wax allaala wixii socdaba waa meeshaana layga gaaraan umalaynaa jiro yar hadday ku dhacda dhibaatada xaggaas ay iga timidaan umalaynaa khasaare hadday qabatay maalinkaas ay meeshaas iga gaartaan umalaynaa fulaana isoo maraan umalaynaa wixiisa dhan sidaas bay noqonayaan marka sidaas waxa weeyaan ninkaas nin bani aadan oo caadi ma noqon karo walidaalika nabiga calayhi salaatu wassalaam yaa wuxuu leeyahay laa cadwa walaa tiyarata walaa haamata walaa safar caadaadkii waxyaalaha ay u aqooni jireen waxaa weeyaan wax laysku reebanayo oo qofkii asiga cudur kugu ridi karo biduuni taqdiirin min allahi ilaahay asoon kugu qadarin ma jirtaa leeyahay
walaa tiyarata wax la baasaysto oo dhibna kuu keeni kara nifcana kuu keeni kara ma jiraan buu nabiga yidhi walaa haamata guumays wax la yidhaahna ma jirto oo waxa weeyaan dad baa waxay shimbir baa xali saaki gurigii agtiisa kusoo degtay sidaasay u qaylisay marka waxa weeyaan dhibaataa dhici doonta gurigan waa laga dhima doonaa qofaa buka doon saasaa la diidaya shimbir iska buubay geedkan hadduusan ku degin geedkaas kale unbuu ku degi lahay marka inaad tidhaahdo kownkan wixii xaraka ahoo socdabo inaad tidhahdo waxaasay la socdaan inaad tidhaahdo waxaad noqonaysaa nin aanan damiir lahayn nin aan kalsooni lahayn nin aanan isku filnaasho lahayn aad noqonaysaa marka taas waa la diidayaa waxaasoo dhan ma jirta buu nabiga alayh salatu salaam min xadiis saxiixayn fi saxiixayn laa cadwa bukhaari iyo muslim ay wariyeen walaa tiyarata walaa haamata walaa safar waxaa lamid in tidhahdo beerheblaya soo gashay bishaan laisma guursado bishaan maxaan ku ihahdaa lama guri galo bishaan saan lama yeelo maalin heblay lama sameeyo waktigaas lama sameeyo waxaas waxa weyaan kitaabka ilahay may ku qoran tahay maya sunadii nebiga may ku qoran tahay maya xaggee laga keeni karaa marka ayaamta ilaahay waa isku mid ma la kala dhihi kara tanaan dhib wadato tanaanaan dhib wadanin daacada taas hala sameeyo jumcada khudbay leedahay maalmaha kale waxa weeyaan cibaadadooday leeyihiin wax la isku dari kara ma jira sidaa daraaddeed yaa ilaahay wuxuu yidhi ninka qofka bani aadamka ah oo aan qof kastaba rajaynay qof kastana ka cabsanaya wuxuu la mid yahay ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا وحا إلهي أونوغم ماهي ولله المثل الأعلى إلهنمada xaqa ah iyo waxa baadilka ka cabsanaysiin farqigu u dhaxeeyo waxa yar la idinka tusina oo maahmaha idinka taqaani hal nin oo adoon ah oo 10 nin iyo 20 nin ay isla leeyihiin oo kulligood iskhilaafsan yihiin ninkan wuxuu leeyahay istaag kana wuxuu leeyahay fariiso kan beerti aad kan dukaanki aad uu leeyahay ninkaas adoonka wax ma qaban karaa buu jawaabti waa may liano yow ateecayuusa ka taga ninkaas ma la mid yahay nin hal adoon kaligiis oo ilaahay subxaanahu watacaala hal nin oo sayid u sameey oo uuna toosan yahay isku mid miyay noqon karaan maya marka waxa weeyaan ninka adoonka ah oo ilaah kaligiis caabuday waxaa qayb uu ka mid yahay oo la mid yahay baa leeyahay nin adoon ah oo nin sayid uu leeyahay walillaahi almathalu alaa waa soo dhaweyn weeyaan ninka kale oo adoonka muslim sheeganay oo cid kastana ka cabsanay cid kastana rajaynay wuxuu la mid yahay halkii adoon oo 10 qofood ay wada lahaayeen ay 10koodina iskhilaafsanaayeen sidoo noloshiisa uu ku nooshahay oo kale uu ku nool yahay baa dareemi kartaa dhibka ay leeyihiin marka wax arintaas islahaan karta ma aha markastana waxa loo baahan yahay marka muslim hadaa tahay wixii ilaahay ka cabsi ku yirana ka cabso oo waxa weeyaan ciqaabkiisa sharta oo ka fogow leeyana ka fogow nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri kama fi xadiis ibn mas'ud xadiis saxiixa at-tiyaratu shirkun buu nabiga kaleey salaatu wasalaam saddex joor buu ku celiyay marka tiyarada waxa weeye wax la baasay waxa weeyaan cabsi aad ku gaar yeelaysaa markaasuu nabigu wuxuu yiri wama minna illa walakin Allah yudhibu bitawakkul nin anaga naga mid ma jiro ilaa waxa laga yaabaa inuu tiyarada ay naftiisa ku dhacdo laakiin tawakkul buu ilaahay ku tagsiina waxa leedahay ilaahay baan tala saartay wixii asiibayani waa ii qoran yihiin wixii iga maqlan iguma dhacayaan sidaas ay ku baxayaan markaasuu nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu yiri laysa minna man tatayyara wala man tutayyira lahu aw takahana aw tukihina lahu aw sahara aw suhira lahu ninka muslim hadaa tahay inaad meelo badan ku xirnaatid lama rabo waxa weeyaan baasays iyo wax la sharaysa ma jiraan wax faal iyo balaayo la isu dhiga ma jirto waxaa loo baahan yahay qofkii inuu noqdo adoon kaligiis oo ilaahay gaar ku ah oo marka allaala markii dib ay ku dhici rabaan yiraahdo ilaahay baan aniga aan ka magan galay haday ku timaadaan yiraahdo ilaahay baa ii qadaray labadaas waxaan ahayn wax soconaya ma fi musnad ahmad waxa ku sugan xadiis ah oo xasan la yiraahdo man raddathu tiratu faqad qarafa shirka markaas waxa leeyahay rasuulkiisiyo wama kafaratu dhalika ya rasuul allah قال يقول أحدهم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك نكي باسيست شمبر بمان تبوبي كاساتي السفر كي وكان نقرنها لأنه إنه سفر كان في عينه وحي يقول دليل قال لي ربا قري يسود أما أنا صعدي وحي يقول قايلين
marka waxa weeyaan ama faal baan dhigtay waxa ii soo baxay wixii xumay ninkii taas daraadeed wixii uu qaban lahay ugu baaqdo qayb shirki uu ku dhacay buu nabiga calayhi salaatu wasalaam yiri markaasaa wuxuu yiri maxaa u daawo ilaahay rasuulkiisiyo markaasaa waxaa tiraahdaa ilaah wax la baasaysa oo adiga aadan qadarin ma jiraan ilaahu khayr adiga aadan bixin ma jirto laa ilaaha hayruka inaad tiraahdo qalbigaada tawxiidkaas ku nadiifisid yaad kaga bixi kartaa ayib marka qofka muslimka waxaa laga rabaa inuu aayaadka si gooni u dhuuxa ilaahay wuxuu leeyahay waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbuhu ninkii ilaahay tala saarto asaa kugu filan ibna asaa kaa ilaalinaya khayrkoo aad rabtina asaa ku siinaya ninkii aayaddaas akrinaya ee maqlaya fahuwa xasbuhu ilaahay baa ku kaafiyo xasbuna allahu wa nicma alwakiil akrinayo ee maca daalika kayrkiisa asigoon waxba aan qiimo lahayn maanta dhanna daba orday ee ka rajaynaya khayr ama shar uga cabsanayo dhahay ama uu dhib kuu geysta aayaddaas macnaheedu uusan fahmin waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbuhu ilaahay qur'aankiisa wuxuu ku leeyahay maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ila fii kitaabin min qabli an nabra'aha bal u fiirsa aayaddaas si fiican u dhadhanso ilaahay wuxuu leeyahay qofka bani aadamka musiibo ku dhacdaahu ma jirto ardada ha joogo ama samada ha joogo ama dhulkiisa ha ahaado ama naftiisa ku dhacda ma jirto ilaa fii kitaabin waa la qoray horay u qoran tahay min qabli an nabra'aha naftaas intaanan abuurin yaa wax allaale wixii ku dhici lahaay oo dhan oo shar ah ama dhib ah waa qoran tahay mar allaale wixii khayr aad hilleed intaan lagu abuurin baa la qoray marka maanta derbigan ka leexa inta ka leexa aynamaa takunuu yudrikum almowt walow kuntum fii buruujin mushayada waxa weeyaan sabab adiga aada la timiday qadar ilaahayna kaama celinay laakiin waxaa la rabaa asbaabta daahirada inaad samaysatid adiga wixii karaankaada albaabtaada xero xoolahaada iyaarso lacagtaada meel fiican dhigo karaankaada ka bax laakiin hadhihin min fulaan hadduusan raalli ugu ahayn waa layga wada qaadanaa kulligii nabiga calayh salatu salam wuxuu yihi xadiid oo fii saxiix muslim ku sugan kullu shayin biqadarin xata alcajzu waalkays cajziga waxa weyaan tabadarada iyo taagdarada iyo daacadii aad ka gaabinay xataa qadar hore weeyaan kayskana waxa weeyaan caqligaada iyo kamaalnimadaada tawfiiqda aad heshay xataa naftiyada waa qadar min allahi tabaaraka wa tacaala marka waxaa la doonayaa nin mu'mina haddaad tahay inaad ilaahay markastaba aada barisid waxaa kula gudboon haddaad wax ka cabsatid inaad ilaahu waxaan ilaahu iga kaafi haddaad wax rajaysidne ilaahu waxaas ilaahu khayr ka isii inaad tirahdid nabiga calayh salatu salaam wuxuu noo jiday istikhaara haddaan doonno mashruuc hore aan galno ama guur ama tijaara ama wax lahal inaan galno haddaan doonno inaan istikhaara 2 ragca aan dukanno oo aan markaa ilaahay weydiisanno ilaahu khayr hadduu yahay arrintaan iwaafaji hadduu shar yahayna ilaahu iga celi inaan iraado yuu noo jiday khayrkaasaa lagu raadiyaa waxaad ogaataa wuxuusan ilaahay kuu ogolayn adiga heli maysa sidaa daraaddeed waxaan jeclahay caadadka way badan tahay waana dhammaystiri doonaaye laakiin hadda qaybtii ugu horraysaan ka soo qaatay oo ah caadada caqiidada dhaawac u keenaysa caadada kale oo shareecada islaamka ka hor imaanaysa oona macsi ah qaybyaalka dambaan ku dari doonaa waxyaalaha shareecada islaamka aan kula dagaalno aan u diidannahay baan qayb ka dhigi doonaa laakiin waxa weeyaan qof muslim haddii aad tahay waxa ugu qiimo badan oo adduunyadan ku haysato waa caqiidadaas caqiidadina ma ansaxayso inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala aada rajayso asiga keligiis aad ka cabsatid asiga nafci iyo dur uu lahaada keligii unbaa looga bixi karaaye ilaahyaal badan ha yeeshanin cid kale oo aan waxba kugu tarayno waktigaa iskaga tagsiinin haddaad cabsanayso ilaahay ka cabso haddaad rajaynayso ilaahay rajay haddii aad wanaag samaysana shareecada islaamka ku camalfal waxa keli aad ku bixi karto waa intaas haddii aad ku samaysid waxaan ilaahay ogolayn inaad ilaahay aad wax ugu helaysa aad moodidne ciqaab iyo cadaab iyo adduunye xumo unbaa kugu dhacaysa sidaa daraaddeed waxaa weyan qaybtaas hore ayaan ku gaabinayaa anoo jecel caadada kale oo sharciga islaamka khilaafsan oo caqiidada aan ahayn inaan qayb kale kaaga hadlo wallahu aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed jazaaka allahu khayran inuu ilaahay khayraa ku siiyo insha allah waxaan u gudbaynaa markan qaybtii su-aalaha ahayd ayadoo barnaamijkana dadku ay su-aalaha soo weydiin karaan khaasatan dadkii waxaa munaasab ah horey u dhageystay duruustii horey looga hadlay oo ahayd aladilatu almuttafaq almuxtaju biha almuttafaqu calayha adilada laisku waafaqsan yahay la daliishto kitaabka sunnada ijmaaca iyo qiyaas waxaan aragnaa dad culimmadu ha u horeeyaan
khilaafa intaas aad soo sheegtay haddana markii la weydiiyey qaacido ka dhigta khayr batay waa marka wax khayrka intaas dhaafisan oo khayr batay daliil laga dhigan karo lagu camal fali karo ma jiraan. jazaaka allahu khayran. waa su-aal aada u qiimo badan aan doonayna inaan si fiican uga hadalno. waxa weeyaan haddii ay tahay shariicada islaamka in wax lagu dari karo haddee wax macno ay shareecada leedahay ma aha. ilaahay wax buu ogol yahay waxaan hadday dhacaan waxaan ha lagu daaweeye buu yiri. haddii adig wixii waxaan ahayn aad ku daaweysid macnaheedii shareecada maba u baahnin weeyaan. sidaa daraaddeed shareecada islaamka ziyaadana lama ogolo in wax laga nusqaamina lama ogolo. haddii aniga aan idhahdo bal adinka waxaan idin siinaa misaal ahaan duhurkii waxa weeyaan 4 ragco waa ummadda saasay ku ijmaacday. haddaan hal ragca ka nusqaamiyo maxay noqonaysaa? adiga bal isweydii sawma qaab xumo salaad miyay ansixaysaa? diin ma noqonaysaba. haddii hal ragca lagu darna sidaasun bay lamid tahay. haddii cibaadadii shacaa'irka tacabudiyeeda ay saas u xun tahay waxaa lamid ah shareecadii xukunkeedii iyo wixii mucaamalaadka lagu kala baxayne wixii shareecada ay ugu talagashay haddii laga nusqaamiyana waa un salaadii oo ragca laga gooy. haddii lagu darana waa un salaadii oo ragca lagu daray. hadday ansixaysa salaadaas adaan ku weydiinay. haddayna taas ansixaynin tanna ansixi mayse mu'minka wuxuu noqon karaa markii ilaahay amarkiisa sidiisa u fuliyo samicnaa wa atacnaa inuu yidhaahdo. ee nebi maxamedna uu kaga dayday wuxuu la yimid waxna uuna ku darin waxna uuna ka nusqaaminin. markii nusqaan la ogol yahay waxa weeyaan markii qofkii xaqi lahay xaqiisa la yidhi intaasaad leedahay hadduu yidhahdo anaa intaas kuu dhaafay taas waxa weeyaan samaaxa fi lislaam la yidhahdo. marka yaan la isku darin waxaan ilaahay diintiisa kamid ahayn iyo wax diinta ilaahay ka horjeedo yaan diinta ilaahay laga mid dhigin. arrintaasaan aniga ku gaabinay. jazaaka allahu khayran. su-aasha xigta aan ku weydiinayo intaan dhegeystayaasha u gudbin waxay tahay marka laga hadlayo sunnada waxaan in badan aragnaa bulshada noocyadeeda kala duwan in badan ay sahlada amba ayba yidhaahdaan waxaas sunno leh uma ay yarayn ku sameeyaan iyo xaqirid. taas diinta islaamka maxay ka qabtaa? sunnada horta laba macno ay leedahay. mar sunna waxaa lagala jeedaa bimacnaa ariiqati nabiy sal allau alayh wasalam. taas waxa weeyaan waajibkiyaa soo galaa, ruknigiyaa soo galaa, manduubaadkiyaa soo galayo. horta taas ha la ogaado. masalan haddii aan idhaahdo waxa weeyaan min sunati nabiy sala allahu alayhi wasalama annahu yusalli subxa fii khalasin haddii nidhaahdo sunnadii waxaa lagala jeedaa waktigii salaada nabiga alayh salatu slam uu dukanay. marka fariidadii iyo wixii dhan way soo wadagalaan. jidkii nabiga hadii la diintii oo dhan baa soo gelaysa. marna sunna bimacnaa taqsiim alfiqhiyaa lagala jeedaa oo waxa weeyaan waajibaadka iyo faraa'idka wixii kasoo haray ayaa loo jeedaa. sunnada waxa weeyaan qofkii hal sunna waa ka tegi karaa oo waxaa la yidhahdaa maa laa yucaaqabu taarikuhu wayuthaabu faaciluhu baa la yidhahda. laakiin sunnadii kulliyatan in looga tago oo waxaan sunno miya hadii la yidhaahdo sidii axmed ibnu xambal uu yihi ninkii sunnadii ka wada tago oo dhan oo sida witerka oo kale waxa waa rajul suu buu yiri. sunnadana waxay u tahay sideedaba sunnada waxay u tahay ilaalmay faraa'idka u tahay. ninkii sunnada liimaan waaye maanta faraa'idka inuu ka tago waa huban tahay. sidaa daraaddeed waxaan leenahay sunnada horta baa la fahma maxaa lagala jeedaa. markii sunnadii la fahmo haddii ay tahay qaybtii fiqiga sunnada ay u yaqiineen waxa weeyaan nabiga calayh salatu salaam wuxuu sheegay qiyaamada markii la tagay ninka faraa'idkii salaadii la weydiina. haddii salaadii faradkeeda naqsi lagu arko waxaa leeyahay sunna uu sameeyey ma jira. sunnadii haddii laga helay inuu sameeyey wixii faraa'idkiisa naaqiska ahay baa loogu dhammaystiraya. haddii laakiin laga waayo ciqaab buu ku dhacay. sidaa daraaddeed ma aha sunno waa shaygan in layska yidhaha layska fududaysto waajibkii in lagu fududeeyay ay dhacaysa hadhowdam sidii nabigu u yiri oo kale man xaama xawla alxima yuushiku an yaqaca fiih. marka ninkii sunanta ka taga faraa'idka inuu ka tagana way caddahay. sidaa daraaddeed waxa weeyaan naftaada casiimada ku qabo meesha kore kasoo bilow sayna wax kaaga tegin oo kale. wallahu aclam. khayran. markan waxaan gelinaa qadka ugu horeeya. assalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. laga magacaa وانت هذه حافظة سوق حالة. hindu mawduucan oo aan sheekh hore uga soo hadlay in badan haddii aad la socotay maxaa su-aalaad ka qabtaa? marka sheekha أكل سوق كل كريه حسب الله تعالى سيده وحياة بدنا وشيء. walakin insha allah ودين كساس حتى إن تبدل بيت أو إيشات إن تقاملا. أربعين سلسلة كويت شيخة.
su-aasha hore waxaa waay horta in dadka caadooyinka aad u badan ay ku dhacaan hataa in maanta jimcada waxaa soo baxa maytada soo baxda oo maytada waa in la siiya isagoo bad iyo wax la siiyo hadaa la siina dhibaataa nagu dhacaysa horta halkaas way dhahaan midda labaado kale waxay tahay waxaa arkaysaa inay kuleeyihin dad iisida caadooyinka waxaa waaye in sida xalq oo kale maska oo kale aanoo ku tufna oo caalow lehna inaan ku tufno marka anaga in meela noo furo noo imaado hadaa u tago dadka inteeda iga soo galaan nafta maskaa ku tufaa maska hadaa ku tufa waa raysaneen midda kale waxaa waa caadooyinka horta in sayda nugsabakay kumamaayo hataa in caado laga diga waxaa kana diintiisa lagu socon qaba lahaa in lagu dhahayo caado laga diga cara alay leedahay in ayaga dadka hataa ku dhahayaan marka waktigii nagu soo biirta caadadan iyo wadamadii nooga soo biirta caadada iyo waktigii soomaalida kusoo biirtay muslimiinta jeclaala inaa weydiiyo wajazaak allahu khayran baarak allahu fiik midda oo ah maytada inay soo baxaysa maalinta jumcada ah mushkilada jirta waxay tahay horta waxa weeyaan haddii aan wax kasta aan weydiin lahayn shareecada islaamka maxay ka qabtaa jawaabteedi waan iska heli lahayn ninka maytada oo meesha joogto oo maalin gooni ay usoo baxayaan oo ay leeyihiin oo dadkooda u imaanayaan ma jira bataatan meel ku soo aroortay laa fi kitaabillah walaa sunnati rasuulihi sal allahu alayh wasalam laakiin qofkii waxa weeyaan isagoo hurdaye qariibtiisa waa arki karaa iyadoona sabti ah iyadoo jumca akriyo ku arki karaa inay hadal badan isdhaafsadaana dhici karto qofka mu'minka qaybka wuxuu wax ugu ogaan karaa waxaa kamid a ru'ya saalixa baa la yidhahda laakiin wax la yidhaahdo maalinkaasa la imaanaya maalintaas raashin ha loo diyaariyo waxay ay sharciga islaamka ku leedahay ma jirto mushkilada ay tahayna waxaa weeyaan waxayba imaanaysaa nooc min alcuquuq hooyada ama aabbaha ama walaalka oo dhintay inaad usbuucdii hal beri keli qofkii uu yidhaahdo maalinkaasaan aan samafal u samaynaya waxaa la rabaa mar allaala markaad soo xasuustid markaad salaad dukatid markaad khayr samaysatid inaad ayada u niyeysatid oo ayaga aad u ducaysid aa looga baahan yahay mooye haddii aad tiraa jumcada keli aan aniga u khasisaya wax aada u fool xun weya taas wax sax mana aha shariica islaamka waxay ku leedahayna ma jirto ninkii yidhaahdo arrintaasaa jirtana waa nin baahan oo ummadda doonaya inuu bunka kaga cuno wax sharci islaamkaa shaqo kule ma aha su-aasheeda kale waxay dadka dhaho jirooyin khaasaan ku tufnaa amba dabaqalooca amba maska amba hebelow ma jiraan wax sidaas oo cuntooyin weliba waxaa dheer cuntooyinka qaar ma cunaan dadkaas amba sandow amba wadnaha amba hebel amba xubin hebla ma cunno maadaama aan hebel ku tufna yidhahdaan waa arrin aada u fiican iyadana ruqyada nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu wariyey dad oo ruqyala waa jiraan oo jirooyin gooyin ku tufo marka laa ruqyata ilaa min caynin xadiis saxiixa ku soo arooray xaaskiisana gabadh oo ah mu'minaadka kamid oo yidhi adinka waxaa taqaaniin ruqyade gabadhaan ruqyada bar ruqyada marka maxay tahay taas inaan isweydiino wa ruqyada waxa weeyaan waa qofkan ilaahay wuxuu mawhibo u siiyey shareecada islaamkoona ku asalay markiin aniga aan ruqya samaynayo ruqyada wax laysku akriya baa jirto almucawadatayn oo qul acuudu birabbi alfalaq qul acuudu birabbi annaas aayat alkursi iyo wixii lahal ee ruqya sax weeyaan sharciga islaamka waafaqsan weeyaan wixii ka soo haray lama dhihi karayo ruqya anigaan leeyahay daraaddeedaan haddana raashiin ugu tegaya asal ay ku leedahay ma jirto qofkana waxaa loo baahan yahay anaga waxaan arkay dad badan oo kaan kale inta ku dhacay laleeyahay isbitaal laga gey maayo fulana ku tufayo subax kasta kusoo dheelmanay oo markii hore cudurka haddii la bilaabi lahayna oo laga gaarsiin kari lahay ma ayna samaynin marka waxa weeyaan waa khalad waxaan meel aan sabab aan ahayn oo sharcan la taaban kara in sabab laga dhigo waktiga la isugu qaato ma banaana sharcan marka sidaa daraaddeed ruqyadan waxaa la fiirinaya waxa la isku akrinaya iyo qofta akrinaya toosnaashadii shareecada u ku toosan tahay qofka hadduu islaamku ku toosan yahay wuxuu akrinana wax asal ay yihiin insha allahu tacaala way anfacaysaa wixii kasoo hara maya dadkaas weliba candhuuftooda keliya marayaan ayagoon waxba akrin in badan oo kamid a candhuuftooda inay daawo tahaa la aaminsan yahay waa wax sax ma aha wax jiri kara maaha waxa dhan oon ka hadli doonayna kamid tahayo dad baan oo aragnay dad kale intay qabaystaan biyahooda dadka cabsiinay wax badan baan ka hadli doonaa wax saxena ma aha islaamka ilaahay wuxuu kugu soo dejiyey inuu ku xoreeyo nadaafad iyo wanaag iyo toosnaan laakiin in isdullaysado carro aad cuntido turaab lagugu magacaabo wax diinta islaamka shaqa ay ku leedahay ma aha
jazaak allahu khayran. haddii xalqadaada hore duruusta ku baxday mid kamid aan dib ugu laabto waxaad ka sheegtay masaa-isha diinta iyo adiladii laisku waafaqsanya. marka waxaan aragnaa adiladii laisku waafaqsanay ayadoo qaar culimmada kamida laga yaabo inay khilaafaan qaarna ay waafaqsan yihiin. markay caamadii aragto culimadii ku kala tagsan laakiin nin laga yaabo in adilada u xigo in caamada ay u qaadato masaladan culimada aad ku khilaafsan oo wixii dhanba wada diin laga dhigo. marka goormay masaladu khilaafi la dhihi karaa oo khilaaf muctabara uu yahay? waxa weeyaan waa arrin meesha ku jirta. mushkilada jirtaa waxay tahay horta waxaa magaca culamada ku nasab sheegana iska badan. marka waxaa soo geli kara dad badan oo aan culamaba aanan ahayn ee cimaamada inta u xirtay doonaya maslaxadooda inay ka xaqiiqsadaan. sidaa daraaddeed dadkaas haka malaynin marnaba inay xaqna sheegaan. horta haddii doonaan inay sheegaan namaba yaqaanin waa mid, hadday yaqaaniinna maslaxadoodii bay ka hormarinayaan oo waan sheegnay oo umamtoo dhan bayba ka jiri jirtay. masaa'il laysku khilaafay waa jirtaa oo masaa'il fiqhiya oo saxaabadii waman bacdahum ay isku khilaafeen. taasna waxaa daawo u ah qofkii hadduu jaahil yahayne aniga jaahil baan iska ahaana horta lagaama yeelay. waxaa laga rabaa shar islaamka ina wax ka baratay waa qayb. haddaan wax ka baranane labadaan iskhilaafsan maxaan ku kala bixi karnaa kitaabka ilahi sunnada nabiga alayh salaatu salaam ha loo bandhiga hadalkooda. wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuu ila allah. haddii qofkii uu caamiyo uusan garanaynin waxaa la yidhahda xaqa calaamaad uu leeyahay. nin dankaa raadsanayo oo maslaxa leh oo maanta dhan dadka daba ordaya un adiga dhaqaalen kaa qaata rabo iyo nin khayrkaas inuu kusoo gaarsiyo wax uu kaa doona aan lahayn laba calaamay bay kala leeyihin. marka adiga inaad fiirisid oo ninka markuu wax sheegayo wax ku raadsanay iyo nin diintaas inuu faafiyo adiga kula xanuunsanayo inuu dhibkaas kaa keeno bal adiga arrintaa kala faham. markaa kadib ninkaad culamo ka dhiganaysa adigaa taqaanid hadhowtina waa lagu weydiina oo cilmigina baro. xaqana waxa weyaan calaamooyin badan loogu garta buu leeyahay meeshiisa u raadi baan ku leeyahay. jazaak allahu khayran. asalaamu calaykum. raadiyaha iskadim walal magaca amiin raadi. haya amiin su-aashaada maxay tahay? walaal horta waa sheekh in badan buu mahadsan yahay. mawduuc aad u wanaagsan oo maarata qiimara waaye. laakiin ay ahaata waxaa jirta waadooday fara badan yihiin. mushaakilka wadanka soomaaliya joogtalagtada waxyaala u kala qaybsan yihiin xagga aragtida diinta. inkastoo maaragtay farqooyin fara badan ay jiraan sidaan la socono. su-aashaas soo koob. waxaana soo koobiya marka waxaan doonayaa sheeka haddii nin sheek oo caalima diinta islaamka in badan ka garanaya oo yidhaahdo kasoo qubo waalidkoodisoo kale ama wakti noocaasa ixtifaal noocaasa u sameey yidhaahdo amiga waktiga noocaasa hafakeen ama hasaahiyeen yidhaahdo oo markaa ninka u yahay nin markaasi cilmi leh u yahay oo gacan ku dhaqma diintu maxay ka qabtaa sheekh muhiim ahna diintu maxay ka qabtaa mayanaha daliil waa inuu ku hadlo. sax weeyaan walaal waa mahadsan tahay runtii. mushkilada jirtaa waxay tahay annaga haddaan horta diinta wax ka baranno waxa iska sahlanaan nahay cid kastoo ama wax ku amarto ama wax kaa reebto ina tiraa sheikhu maxaa u daliil. marka daliilkii ima inuu aayad kitaab uu keeno qur'aankii kariimka ay ku dhex jirtay inuu xadiid nebi uu keeno. xadiidkii waxaa laleeyahay haddana maasixatuhu xadiidkaas nebiga ma ka sugnaaday. ninka markuu mufti noqon karo waxa weeyaan markii wax la weydiiyo meel uu ku asalayn karo. marka haddii adiga aad tirahdid ninkaan sheekha oo weyno dadka ay daba socdaan baan aniga arrintii ii xalilay waxaan leenahay mashaa'ikhda wax ma xalilaan waxna ma xarimaan. waxaana kugu ziyaadinaa reer bani israa'iil iyo dadkii ka dambeeyey waxay ku dhimeen ittakhaduu axbaarahum warubaanahum arbaaba min duuni illahi buuri. markaasaa nabiga ninkii maqlay Cadi ibn Xaatima wuxuu iri ilaahay rasuulkiisu rabbi kama dhigan. markaasuu iri dadkaad culamada u taqiineen soo waxna idinkama xarimi jirin waxna ma idin xalili jiro ilaahay ogoleen. markaasuu iri taas waxaa cibaadaday qayb ka tahay. marka waxaa la rabaa ninka waxa keenay fawdada waxa keenay dadkii caamadiyaa badatay wax allaale wixii loo sheegay ay kala garan maayaan. taas waxay fursad u noqotay nin kasta inuu meesha iska soo galo wuxuu rabo uu sheego. laakiin ummadda wacyigooda hadday soo saramari lahayd diinta ay wax ka aqooni lahayd waxay kala garan lahaayeen ninka xaqa sheegay iyo ninka baadilka watay kala garan lahayn. marka xal anagu uma aragno ilaa in diintii wax laga barto oo masaajidihii la tago oo culumtii la dhagaysto oo qofkii u isdhiso. marka waxaad garan kartaa laba qofood markay hadashay inayna xaqi isla wada keeni karin taas ku ogow. wallahu aclam.
جزاك الله خيرا. waxaan rabnaa Dr. Umar xalaqaadkaaga tii labaad oo kale waxaad ka sheegaysay in nusuusta sidii sheegaysa la khilaafay masalan marka la joogo tacsiyada oo kale ijtimaaciya iyo la sameeyo weliba waxaan aragnaa qofka markuu geeriyoodo intuu aan la joogin dugba loo ololeyn gowrac iyo la sameeyo rag culimaana inay yimaadaanay subax iyo adduunyo iyo quraan iyo qabtaan intuu meesha yaal taas diinta meel ma ku leedahay mise wax lagu khilaafsan yahay shariicada kamid ah waa iyadoo aan meel looga gabanin waxay kamid tahay waxa shariicada meel weyn looga dhacay nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu yiri ninka mu'minka hadduu dhinto xaqa uu dadkiisa ku leeyahay waxa ugu weyn in la degdegaan doogitaankiisa isla markii in qabrigii iyo karfantiisii iyo dhaqitaankiisii iyo salaadii in lagu maro inaan meel kale lagu daahin karin markaasuu nabigu yiri marka halala degdego fa in kaana saalihan fa khayrun tuqaddimuunahu ilayhi وإن كان شرا وإن كان غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم marka wax kale in la sameeyo ma banaano in guriga isku yimaado oo asiga gurigiisa iyo raashinka lacagta uu ka tagay la cunana ma banaano wixii aan hore ugu soo hadalnay waxaan ku sheegayaa waxaanu aragnay in baadhimana ilmo yar yar oo agoon uu ka tagaya dad badan oo malaayiin ah u kulmay waxa la bilaabayaa lacagtii agoontaas ay leeyahay looga dhintay iyo guryahoodii iyo xoolahoodii inay cunid lagu bilaabo ninkii meydkaana uu meesha yaalo marka taas inayna diin ahayn in aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran baa ilaahay u leeyahy marka waxaa la isku haystaa nin agoon umburtii gambarkiisa ma lagu fariisan karaa gurigoodii ma lagu soo fariisan karaa la isku haystaa ninna waxa waye xoolihii iyo wixii dhammaa iyo gurigii iyo reerkii la dhexyaacaya marka taas sharcan islaam ku banaano ninka saas sameeyana wuu ogyahay shariicada islaamka inaysan qayb ku lahayn wallahu a'lam jazakallahu khairan hadka xida assalaamu calaykum assalaamu calaykum assalaamu calaykum wa alaykum assalam magaca wala abdinaasir umar sida misal goobe haya cabdinaasir raadiga iska fogey ay insha Allah hay su'aashaada cabdinaasir su'aashaada waa laba su'aalood aan taala sheekh balayo iyo tafsiir midda waa sheekh waxaan weydiinayaa waxaan ognahay in culimadii Soomaaliyeed ay farabateen cilmigii islaamka maatay gaar ahaan Soomaaliya waad farabatay sidaas daraadeed maxaa culimadu u diiday inay ka wada shaqeeyaan dariiqan haadihi sabiili oo bedelkeedii marba marka ka dambaysa oo khilaafkooda usii kardhaadaya ilaa xitaa ay gaareen in la khalal la geliyo taas waa su-aasha koowaad midda labaad meel kastoo ala dhaqmadu oo waxaa joogi jiray culumo hadeer la jooga culumaday joogtay meel kasta iska dhacay maxaa u diidanaa oo alisheekh rayaantiisa aan weydiina maxaa ka hortaagnaa in ay maaragtay ka hadlaan wixii shariicada islaamka aan waafaqsanayn labada su-aalood aan qaba waayahay tan hore cabdinaasir caday ayay soo qod islaamka maaragtay Soomaaliya guud gaar ahaan maaragtay uu aad u batay sidaa daraadeed maxaa culimada ka hortaagan inay dariiq aan ahayn sabiila ku wada shaqeeyaan meesha khilaafkooda marbarkii ka dambayso maaragtay uu sii karo waayahay waad mahadsan tahay marka khilaafaadka maadaama diintu ay caddahay cilmigana yaal maxay culimadu usii kala socotahay isugu imaan la-yihiin dad sax waay walaalo waxaan kuu sheega cabdinaasir oo sideedaba waxaa la yidhaha culamada markii hore cilmiga nuqda buu ahay markii cid kasta ay dhex gashay yaa khalad iyo sawaab la dhex geliyey markaasuu cilmiga ziyaaday cilmiga ma la dhamayn kara marka lagu leeyahay malaayiin dad baa ka wada hadashay nina astoosnaan ugu hadlay nina khalad ugu hadlay tiibaa waxay u baahatay inay culamo kale ka hadlaan sida loo sax marka waxaad ogaanaysaa casri kastoo yimaado nin kastoo bismi culamaa sheeganayo khaladkau galo waxaa loo malaynaya diinta inay kamid yahay waxay u baahan tahay juhdi in lagu bixiyo in lagu bixiyo in la sax sidaa daraaddeed asbaabta keentay culamada inay iskhilaafto wax baan kaaga sheegi doonaa duruusta hadda soo socoto oo waxa weeyaan ama jamaacad ha isku khilaafaano ama masaa'il ha isku khilaafaano maxaa buddhigu ah maxaase sharciga ka ogol yahay uusan ka ogoleen waxay kamid tahay mashaariicda aan ka hadli doono haddii ilaah yidhaah marka culamada in iskhilaafaan ma aha ceeb laakiin waxa weeyaan wax la wada ogyaho shareecada islaamka aanan kamid ahayn in si toos loo bareero midda lala yaabsan yahay taas weeyaan taa horta taasaan baan ugu jawaabayaa sidaa daraaddeed waa in ummadda laga helo mar kastaba dadka ku hago xaqa ku soo celiya su-aashii hore taasaan ugu jawaabaya waa midaan caadada culimadan dadka caadada ku horjoosa masalan badgalka iyo istunka iyo wax walba la samayna waxaan aragnay culimaha dadka ka horkacda waa tamaam jiddan waataan hore usoo sheegno waxa weeyaan qofka haddii uu yahay qof mashaqaystay cumuuman
wuxuu raadsanayaa waxaan asiga uu sheeganayaa inuu ka dhigto hawl waxa meesha ka jira wax kale ma ahna waxa weeyaan qofkaan markuu ummad horjeego u noqdo haddii aad maanta doonaysid dadkaan inaad wax ka qaadid waa inaan idhaahdo sanadkan sanad balaa-e weeyaan waa in qur-aan badan la akristaa anoo doonaya marka inaan maanta 100 qofood wax u akriyo aan doonaya intaa inaan lacag ka qaato markii aniga aan doonaya inaan nin siyaasi aan dacmiyo oo dantayda ina shariicada islaamka aayaadkii asiga ninkaas ayadaysa inaan soo qaato waxa dhan oo meesha jirana sidaas weeyaan waxa asaasan u ah iltizaam iyo cabsi ilaahay baan jirin waa ku danaysi oo islaamka lagu danaysanay taasna si gooni aan uga hadli doonaa hadii ilaahay jazakallahu khairan waxaad xalqada saddexaad ku sheegtay dilka iyo sida diyada maanta qabiiladu ay ka dhigteen marka waxaa su-aasha dadku in badan isweydiinayaan haddii qof muslima la dilo horta yaa diyadiisa iska leh diyadiisa ma la mid tahay 3 milyan iyo wax lamida miya iyo dacyar lacag ku jirto mise diya mana islaamku u magacaabay waa sax weeyaan inkastoo aan middaa hore qaybteeda aan ka hadlay oo diyadii ay tahay 100 halaad oo geel iyo wixii qiimaha u dhigmo oo aan niri ninka mu'minka adduunyada zuushoo dhan iyo asiga asaa qiimo badan xataa diyadaas ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalo nabigiisa noo cadeey macnaheedii ma aha ninkii dhiigeeda inuu dhigmi karta ma ahan laakiin dadkii waxay dhixi karaan intaas marka bacmadow wax la yiraahdo neef ari ah qof muslim ah in diyadiisa laga dhigo xataa aan hore kugu sheegay qofkii raatibkii hal bil uu qaadan jiray markii la diri diye in looga dhigo waxa weeyaan wax aad u foolxun waay laakiin diyadaas yaala waa mid hadda igu soo nagu cusub oo aan hore ugu hadlin hore waan u sheegno qofka haddii qof gaf u dilo qabiilkiisa qaraabadiisa say u kala dhow yihiin waajib ah inay bixiyaan asiga lagama rabo hadduu gaf u dilo asiga soon unbaa laga raba laakiin haddii asiga la dilo diyo la keenay diyadiyaa qaadanay ma dadkii hadduu asiga wax dila diyada bixi jiray maa qaadanaya mase dadkiisaa dhexlaya mas'alada khilaaf ummadda kama joogto haddii la dilo diyadiisa dadkii asiga dhexli lahay oo caruurtiisii labadiisii waalid zawjadiisii ay kamid tahay nabiga alayh salatu salaam ninkii saxaabi wuxuu iri ina anabiya warata min zawjati ashyam ninka saxaabiga la yidhaahdo zawjadiisa oo diyadiisa wax ka dhaxalsiiyey waxaa loo moodaya awalka hore diyada inay gaar ku tahay caruurta iyo aabbaha markaasaa layidhi zawjada qayb bay ku leedahay marka diyada qayb diyada dhan waxaa iskale markii la keeno ninkii dhaxalkiisa iska lahay laakiin qabiil laguma dhaxli karo taas inaan ogaanana way u baaboon tahay iyadoo 3 milyan sii ahayd iyo haddana 3 milyan caado waxaa laga dhigtay in dadkii meeshiiba lagu qaybiyo ciddii laga dhintayna aan laga dhigo qof ayay kamid ah dadkaas shaqeysana qof kamid in laga dhigo waxa weeyaan wax dhaawac islaamka loogu geystay ummadina la isku baabi'inayo oo jahlina lagu socday kamid tahay midaas wallahu a'lam jazakallahu khairan assalaamu calaykum magaca wala hayna su-aasha laba su-aal aan rabay inaan weydiiyo hore waxa waaye yani ilmo oo agoon ah oo markaas aabahooda waxa ugu dhinteen aysan quudanaynin oo qof kale shaqaaladooda qaaday walaal oo qofkan oo ilmahan uu siiyo wax sadaqaad ah sida raashinka bisadoo kale iyo laga bixin karaa haye sida labaadna dadka hadda yani waxaan ognahay yani dad badan inta weli ay sheegayaan qof oo yani oo wadaad oo kale masalan oo soo dhahay yani waxyaabo nooca soo socdaan qur-aanka hal akhristo inta qur-aan oo kale dhowr yaasiin oo kale dhowr ay soo ilaa yaasinaha oo dhahay yani hal akhristo ma la akhrisan karaa waad mahadsantahay tan hore waxa waaye ilmo agoona oo kafaaladooda qof kala qaaday lacagtoodaas oo kafaalada lagu qaado qayb kamid a cuntada masadaqin kara kafaaladooda lacagtoodii maana waa qofka kafaal qaado sax waay qofka agoonka mar haddii la kafaalo qaado lacag loo qoonde lacagtaas milki bay asiga u noqonaysa waxay la mid noqonaya xoolihii asiga uu hore u lahaa oo aabiis ugu tegay iyo kuwan dad muslimiin ay ku sadaqayseen labadaba fii milkal yatiim buu gelaya mar haddii saas noqotane ninka agoonkaas weliga u ah haddii uu hool beelo qayb waa ka cuni karaa gurigoodi wax waa ka geli karaa maadaama maslaxa yatiimta u ahay laakiin yaytaamaa laga sadaqaynaya ma jirto ninka yatiimka markuu baaligo caqli yeeshta wuxuu raba ha sadaqaysto
hadduusan sadaqaysanin xoolihiisa faraha laga saaraya laakiin asigoo yatiim ah laga sadaqayna ma jirto mana banaan laa waalidkiisaan loo sadaqay karin walaa keyrkiisaan loo sadaqay karin xoolahaas milkay noqonaya dadka qaar ay waxay aaminsan agoonta xoolahooda zaka inaan laga dhigin taas ka waran maadaama hadalka aan soo qaadno waxbixin sax waa wax fiican weyaan xoolaha sida yatiimka ay leeyihiin hadday nisaab gaato xoolo zakawa ay noqdaan zaka waa laga bixinaa qowlka raajixa ah oo adilada sariixa ay ku soo aroortay lianna azakaata tajibu cala almaali bisarfi nadari can maaliki qofka iskale ha noqdo majnuun ha noqdo mid yar ha noqdo qof weyn xoolaha hadiiba zakaba ay gaaraan in laga bixiyaa waajib marka looma fiirinayo yatiimnimadaas taas waa waajib asigoo lagu leeyahay dadka aytaamta ay kuleeyihin وجزاك الله خيرا إن فرصة قدام بيسا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة مقعان. وإن شاء الله رواء بير أحسن الله تكمل الرواء. بير. مركا وحاجنا يا كتاب الله خير على العظيم غفر الله والسلام يا مكر السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنت كنت وحاشي على المحاويين والله في الجوية لبس العاد غيرها. أي فوقه. ده أول مرة يسأل شعر وحكاية أو سيورا اللي عاد كذا واجير waxaad mudaaid cumur leenahay qaarkood aad muddo in meydada markay dhimatay ay xusto halka qaarkood ay sarfusin oo qaarna aad muddo isu wacayda waxyaaba la akriyo dadku waad muddaa kaa kala tabacsan yihiin oo way kala raacsan yihiin maadaama cumur ay yihiin dhiig shacabka dadkii shareecada kultadu ku hagi lahaa shacab koob haye shacab yaa raacnaa oo aan qof raacnaa kow tan labaad gudub waxay tahay waxaad muddaa marka qaarkood isku baa ka dhaca si walaalaadku waxay aaminsan yihiin inay tahay in haddii istumin aysan isgaraacin in aysan kuwa beeruhu ama isugu dalayin oo ay waayahay deeq waad mahadsan tahay haddii marka culimadu iskhilaafayaan raacna su-aasha ugu dambaysan kusoo gabagabeynay sax waay waxa weeyaan adiga maadaama nin muslim aad tahay khitaabka waxaa kugu wajahan qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni yaxbibkum allah culamo lama raacaye rasuulka ilaahay baa la raacaya marka waxaa waajib nagu ah inaan anaga wax baranno ilaa aan ka ogaano rasuulka ninka jidkiisa raacsan iyo ninka khilaafsan inaan kala ogaano inaan horta wax barana loo baahan yahay midda kale waxaan kuu sheegay oon horena ugu jawaabay xaqa calaamaad badan uu leeyahay nin dankaa leh oo zacaamo iyo madaxnimo raadsanaya ama lacag iyo raashin raadsanaya iyo nin daaci ah oo aan waxba kaa rabin oo habeen iyo maalin inuu xaqaas sheego usoo jeedo wax dan uu kaaleeyahay aanan lahayn waxaad dareemi kartaa labadaas qofood qofkaan waxa ku qasbaya inuu been kuu sheego asiga ku cadaab tago maxay tahay marka waxa weeyaan taas inay fiirisid midda kalena waaba kasoo jawaabay oo dee waaba arrin hore ka bilaabay dadka qaar waxay dhaheen su-aashaadaan haddaan wax yar ku daro annagu rasuulka ma arkin culimadaana aan aragnay cilmina taqaan rasuulkiina ayagaa nooga sheekay ayaga waxayna dhahaanaan iska qaadanayna sax waay haddii ayaga culamada ay meel ku ijmaacsan yihiin sax waay laakiin hadday iskhilaafaan waxaad kamid tahay qaybtii lagula hadlay haddii ummadda iskhilaafta xaqa ha loo noqdo marka qof xaq u laaban kara inad tahay baa la doonaya oo adiga cilmiga aad baratid ood adig xaqaad gumaysiga aad ka baxid xaqiiqada jira waxa weeyaan cid kasta waxay dadka taqaana inay ku gumaysatay rabtaa marka nin xor ma noqon kartid ilaa diinta ilaahay aad wax ka bari